baan ugu mahad celinayaa marti sharafta fulinta dhammaan golaha deegaanka cid kasta oo halkan isugu timi aad iyo aad baan uga mahad celinayaa kulli halkan waxa inoogu soo gabagaboobay kalfadhigii golaha deegaanka ee aynu bariyahan dambe ku hawlanayn natiijadii qodobadii ka soo baxayna waa kuwa halkan ku cad waxaan leenahay sida aynu u qoray aan ugu shaqayno aan ku hawlgalno waxtarkooda iyo dheeftooda aan gaadhno wadan inoo taala waa nafteennii waxaan leenahay inagu ka gole ahaan aan si fiican uga hawlgalno ka shaqayno dadweynahana waxaanu leenahay nagu caawiya oo arrimahaasi waa arrimo degmada oo dhan dan ah waa naftii nabadgelyada u horeysa nabadgelyada haddaan nabadgelyo la helin dee wax jirayaa ma jiraan wax waliba way istaagayaan afarta gacmoodba aan isugu geyno labada gacmood iyo labada din iyo afka iyo meel walba aan isugu geyno nabadgelyada sidii ay u taaba qaadi lahayd nabadgelyadu meel fiican bay maraysaa sida loo sheegay meel fiican bay maraysaa laakiin waxay u baahan tahay daadejin iyo adkayn iyo qodax ka gur iyo wixii la mid ah bay u baahan tahay taxadir bay u baahan tahay il dheer bay u baahan tahay il dhow bay u baahan tahay waxyaalahaas oo dhami waa waxyaalo ay ku jabi karto kuna adkaan karto shacabka waxaanu leenahay hadday taagan tahay aynu gacanta ku haynaa aan adkayno nabadgelyada dowladdana waxaanu leenahay naga saacida waa ku mahadsantahay weliba ciidamada qaranka aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waqti dheer bay halkan ku dacseen joogeen ku rafaadeen wax waliba kula soo kulmeen aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa sida ay ugu adkaysteen waqtiga dheer usii dantooda ugu ilaaween taasi waa taa dowladdana waxaan leeyahay meel wanaagsan bay joogtaa nala riixa nala daadajiya bulsho waa garanaysaa bulshadu wixii ay ku kala jeesan lahayd waxa looga baahan yahay dowladda waxay ku kala jeesan lahayd ee isku ilaawi lahayd ee isku dhawan lahayd waxa looga baahan yahay waa dowladda mashaariicda dee dhul aanay waxba ka soo saaraynba waa la siiyaa waxaan leenahay halkan markay ugu yartahay maanta nabadgelyada waxbay ka taraysaa mashaariicda la keeno iyo waxqabadka la keeno iyo wacyigelinta la keenaaba waxbay ka qabanaysaa waxaan leenahay dowladdu maanta meeshii wax ka dhaqaaqi jireen bay joogtaaye hanala dhaqaajiso inta jaanta laisla helaa waa yar tahay laakiin inta lagu dadaalaa way badan tahay ee suuro gasha ama aan suuro gelin waxaan kusoo gebagabeynayaa cid kasta oo halkan hawshan ka qayb qaadatay ama xiisaynaysa waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi